nin qasad maalin iiga sheekeeyey nin dhakhtar oo Jarmana ayaa wadannadaas ayuu airport ayuu markaa diyaarad buu magaalo kale u raacay nin dhalinyaro oo muslima ayaa markaa suuratul kahf qisadaas risaalad yar oo culimadu ay ka qoreen oo tafsiirka quraanka una wax kale ayna ku darin oo luqada jarmalka lagu qoray lagu taabacay ayuu markaa yarkii dadka u qaybinayay dadkii diyaaradda sugayay kuraasada ku fadhiyay ninkan waa nin professor oo dhakhtar oo raga adduunyada xagga dhakhtarnimada ugu aqoon badan buu ku jiraa laana wadanka jarmalku waa wadanka lagu sheegay la yiraahdo waa wadanka adduunka ugu aqoon badan xagga dhakhtarnimada loo doonto caafimaadka ilaahay baana caafimaadka haye caafimaadka haye ilaahay baa wasaaradda caafimaadka lagu oran laakiin wasiirka dhan ee caafimaadku u buka balka waran sheekh wasaaradda caafimaadka wasiirka dhanna u buka nin baa la nagu yiri ninkan wuxuu madax ka yahay hay'adda ka hortagga masiibooyinka dabiiciga markaas ku reerkaaga imsa masiibo ku dhacday wuxuu yiri inankayga weyn baa iga wala buuri walan yahayba deebaad ka hortagtida waxba kama hortagi karo insaanku waa daciif وكان الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا إلهي بشيء ضعيف marka wadanka dhakhtarnimada lagu amaano ninka marka ka soo jeeday risaaladuna luqadooda ku qorneed marka yarkiiba uu tuuray oo siiyay oo qaado marka handbag uu gacanta ku sitay iskaga riday waa nin mashquul ninkani laakiin taraaga diyaaradda uu raacay min wadan ila wadan ayaa saacado dhan buu soconayay marka kolkuu kursiga fariisto hawlihiisii wixii uu ageeganay uu dhameystay buu xasuusto yiri kii yaray airportka aad ku aragtay muslimka ahaa warqadii uu ku dhiibad halka ku ridatay bal soo saar oo soo saaray aayadaas markaas dul taagay wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal dhalinyarada ilaahay baa marka ay jiifaan marna midigtaan u beddelnaa baa ilaahay marna xagga bidixdan u dhignaa say u daalindee ilaa qofku xaggan hadduu u jiifo un xaggan xanuun baa gaadhay jirkiisa waa qalibnaa baa ilaahay laakiin ayga ilaahay markuu ka warramay wuxuu yiri وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل ايغو اسغو لما قلبايو ايغو سدو سخدا واد رagtende sidaas uu sexdaa isagu aygu boggan dhulka dhiga wuxuu yiri marka ninkii wuxuu akhristay bini aadanka markay jeefaana waxa la quraankan uu sheegaya in la qalibaayo asxaab al-kahf oo marra xaggan loo rogay marra xaggan loo rogay laakiin ayga maxaa loo rogi waayay buudi waa inaan cilmiga baaraa markuu wadankiisii tagay oo dhakhtarkiisii ku noqday ayuu qalabkiibu baaray oo qoon wuxuu baaray marka dubkii bini aadanka ilaa waxaan way wada haystaan moogta dubkii bay eegeen qalab buu ku eegay inta saacadood dubka bini aadanku dhulka dul oo kara buu soo saaray ayga haddana wuxuu soo saaray bogiisi markaasuu soo saaray haddana ma aragtaan inta sane aygu bogiisu oo dhulka dul oo kara lagu hayn karo sanawaad qurundan markaasuu yiri cilmigan ninka keenay baan u baahanahay buu adduunka waayo markaas muslimiin buu raadiyay oo la hadlay oo la xiriiray waxa la yiraahdaa quraan wa tanzil min rabbil alamin ajib munazzal gormaan quraanku soo dagay 14 qarni ka hor baa laga joogaa quraanka soo dagay dhowr 40 sano ayuuna dushii ku soo dagay محمد عليه الصلاة والسلام نبي الأمي نبي أمي آية قرآن قدوشي سلقو سودجي أمي بالليلي إساقنا وحما قرو وحا الله قرآن ما آخرين كربا الليلي قرآن كن نبي صفاتك إلهي وكشيغي النبي قلنا وكفانو يري نحن أمة أمية أنك وحانا هي أمة أمية وحنا ما آخرين با النبي قلنا وحنا ما قرنا أمة داس القرآن كو سودجي كورما القرآن هو معجزة ويا معجز لأن إلهي جل وعلا السدود يلو ويا إن ربك فعال لما يريد فعال سدود يلو
adoo biyo cabin haraadka uu kaa qaadi karaa adoo cunto cunin gaajada uu kaa bixin karaa asbaabtan adduunyada taalee bini aadamku ay ku noolaadaan adoonan haysan ka ku noolayn kara nolosha ku siin kara waa kuma allahu rabbul alamin jalla jalaaluhu bila asbaab ayaa ilaahay dhalinyarada nooleeyay bila asbaab ونقلبهم وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال هذه كلمة حيد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد أي قال لما قلبه يسقى بالليل لأن أي بقي السودان ليلي ضب كأنه كأدقي هاي لكن إياك أما بني آدم إلهي وحده وانقلبنا دنا عن مركو دالا دنا عن كلام الرجينا دنا عن مركو دالا حاجة كلام الرجينا بإلهي ما شيء هذا الله مقلبه لكن أي قصيد يسوع سووا جفا لأن هرجي سنه أي جبال ليلي بقولال سنة وحو حمل كرادول كانوا صدقوها يسوع لأن أبور كان من آدم كالله أبوري يقاب كان أي الله أبوري وكل دوان تهاي درتي حتى بني آدم كو هدوه هبينكي حق بدحده u seexdo kuma raagi karo waa inuu hore isku rogaa baa lagu leeyahay xagga midigta haduu seexdana hay saacadu qofku jiifi kara laana midigta markaad u seexato qalbigu halkan bidixdu ku yaala laakiin bidixda markaad u seexato baa la yiri qalbigaaga wasniga iyo culayska oo dhan ba ku dhacaya dadna qofku ka bidmaya horu markaa isku rogaya lidaalika nabi maxamed wuxuu inoo jideeyo noo sunneeyay in dhinaca loo seexdo midigta loo seexdo hadda gaaladu markay cilmigan aalaadkan wax walba ay ku iktishaafeen ay ku ogaadeen markay heleen ay yiraahdeen bini aadamku waa inay midigta u seexdaan hadda ay ku garateen miya hadda ay ku garteen aalaad bay ku garteen ay ku eegeen iyo qalabkan ay samaysteen walakin nabi maxamed alayhi salatu wassalam biwahyi min allah wahyi ilaahi xaqiisa kaga yimiday ayuu nabigu noogu sheego hadigiisa waxa kamid ahayd oo yiri midkiin habeenkii markuu gogoshiisa qaato falyadji ala shiqihi al-ayman bu nabigu xaga midigta ha u seexda bu nabigu qof qalbiga xaga ku yaala lidalika qofku waa inuu mar walba in la rogrogo weeyaan waan qalbigeena baa ilaahay dhinaca markuu daalo xaga kale aanu qalbigeena xagani markuu daalo dhinaca kale aanu qalbigeena